سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يضاهى وعن من يرتجي فيه الثوابا بطولات تسطر كيف كانوا أسودا يعتنوا الصرح المهابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada qaybta sagaalaad ee barnaamijka halgankii daraawiishta. قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل. qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo uu ammaanduulihii gumaystaha ingiriisku soo diray fariin ku socota jenaraal maanin oo hogaaminaya dagaalka. ciidamo uu hogaaminayo jenaraalka cusub ayaa ka soo dhaqaaqay Hobyo bishii Febraayo sannadkii 1903 kadibna waxaa soo raacay ciidamo uu hogaaminayay Cornel Balnikid oo dhaqaaqay 22kii Maarso ee sannadkaasi. burcana waxaa ka tegay ciidamo uu hogaaminayay Major Cook. isla xilligaasi waxaa harar oo ku jirta gacanta gumaysiga xabashida ka soo dhaqaaqay 50,000 oo askari oo uu watay xabashi lagu magacaabo Fitwari Kubri oo ay la socdeen laba sarkaal oo British ah laguna kala magacaabo Roosevelt iyo Cable. waxaa jiray ciidan afraad oo ah maleeshiyaad shisheeye kalkaal ah oo ku abtirsanayay mid ka mid ah qabaa'ilkii ay xabashidu ku ugaaranaysay. dagaalkan ayaana waxaa loogu magacdaray Cagaarweyne. Cagaarweyne waxay ahayd goobtii afraad ee goobaha waaweyn ee daraawiishi Ingiriiska kaga guulaysatay, hub badanna kaga furatay. haddii dhinaca kale la eegana waxay ahayd goobta Ingiriisku ku jabay, colkiina ku riiqday, ciidamadiisuna garabka midig ku dhigeen. daraawiishi way ka warqabtay waana ay la socotay colkaasi saddex madaxa ah ee foolka ku soo haya. intii itaalkooda ahna waa ay u tabaabushaysteen, allahna waa ay tala saarteen. ingiriiskuse taa kama warqabin oo waxa uu rabay in uu kedo ku weeraro iyaga oo xogmoog ah. maalintii bisha Abriil 14 ahayd ayaa galabnimadii colkii Hobyo ka soo degay ceelka Gallaadi yimaadeen. halkaasna waxa uu kula kulmay nin darwiish ah oo awrdaan ah wata. haddii la wareystay waxa uu yidhi, anigu daraawiish kama warqabo. dabadeedna waa xireen, hase yeeshe ee habeenkii buu fakaday. ninkii dhaanka watay daraawiish warcad buu u geeyey tiradooda, hubkooda, haasaawahooda iyo wixii ay ku faalloonayeen. 15kii Abriil ayaa colkii tegay gumburaha Cagaarweyne, waxaana uu ka samaystay xero weyn oo uu ku gabbado. darwiishka la yidhaahdo Cismaan Boos ayaa ilaaladii ugu dambeeyey oo habeenkaasi ka hoyday. habeenkaasi daraawiishi waxay ahayd rikaab ku joog, waxayna ku guddoonsadeen waagu markuu dhag yidhaahdo in jihaad lagu kiciyo. colkiina waxay ka dhigeen 2 meelood. Douglas oo colkii Ingiriiska ka warramay ayaa waxa uu yidhi, xerada waxaa joogay rag laga kala keenay dalal badan oo Ingiriisku u taliyo. dalka Ingiriiska, Koonfur Afrika, Hindiya, Kenya, wabiga Niilka, Afrikada Dhexe, Holland, Suudaan. raggaas dalalkoodii sanooyin aan fogeen dagaal bay kala soo horjeedeen dowladda Ingiriiska, laakiin waagaas kadib horukac iyo nabadgelyo ku heleen xukunka Ingiriiska hoostiisa. haatan waxay ku wada jiraan xilligan oo aanan isagoo kale soo marin oo ay taageerayaan dowladda Ingiriiska, waxayna la dagaalamayaan cadow ku meeraya dhulka ka bilowda Raas Gardafu ilaa dhul barka iyo badda ilaa Xabasha. جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود. 16 Abriil ee 1903 aroornimadii ayay daraawiish ciidankii Ingiriiska soo dul fariisteen. kolkuu waagu dilaacay oo ay salaadii tukadeen ayay 4 geesood kaga dhufteen.
muddo yar kadib daraawiishtii rasaastii waa joojisay oo nin walba intuu buntuqiisii garabka gashay ablaydiisiina gacanta ku qabsaday oo iyadoo xabaddii sida roobka u dhacayso cadowgii dhex galay gacantana la isula tegay. تسمو تبارك في السماء والجماع يا فارس الأمجاد فاشر عزة. daraawiish waxay qoryahooda ku dhejiyeen warqado ay ku qoran yihiin fulanimadu qofka kama badbaadiso qadarta. marka go'aan degdeg ay qaateen daraawiishtu waxay ku tashadeen dagaalkan waxay yahay qoryaha ma adeegsanayno. dagaalka isaga waxay yiraahdeen qoryaha ma adeegsanayo, xataa qoryaha waxay ku qoreen calaamad bay saareen ay ku qorayaan oo ay leeyihiin fil jubni caarun wa fil iqdaami makrama wal mar'u bil jubni la yanju min al qadar. fulanimadu waa ceeb, geesinimada iyo maaragtay taqadumkuna waa makrama iyo sharaf weeye. والمرء بالجمل لا ينجو من القدر قفكنا فلينمو كما بدبادو قدرك إلى وحو قري horta markaynu mantiqiyan ka eegno ciidan 6400 ah oo 600 kaliya ay manaajiq ka wadato inta kale maxay qaban lahayd horta haddii mid hubka la isku furo lahaa rasaasta intooda kale rasaasta un baa qaadan lahayd iyagoo iska fadhiya ama maaragtay laakiin khudad ay qaateen khudad fiican bay ahayd markiiba hujuum bay qaadeen waxay ugu daateen siligii bay ka daateen ama taarka isku wareejeen nimanku waxay ka dhigeen waxay dilaan oo qoorta ka gooyeen waxay dooxaan bay ka dhigeen oo silaaxoodii ay yaqaaneen ay weliba soo dagaalami jireen ay kula dagaalameen waxaas kaloo sababtu noqon kartaa ay hubka ugu dagaalami waayeen hubka yaraantiisa ka sokow inuu yaraa taas waa mid tan kale hubka beriyaa la heli jiray ee banaadiqdu waa iska yaraa tababar fiicanna loomaba qabinba laakiin hubka si waxaa loogu dagaalami jiray wuxuu ahaa hubkii ay yaqaaneen safety iyo warankii iyo gamuunkii iyo tooridii iyo wax yaqaaneen ay si waxaan ugu dagaalami yaqaaneen waxaaba laga yaabaa dee ninkan waa nin tababaran gaalkeed hortaagan tahay inuu markaas silaaxa naariga haddaad isku adeegsataan ama qoryaha isku adeegsataan waxaa laga yaabaa isaga inuu maaragtay u gacan sarreeyo laakiin markaad godkiisa ugu tagtid oo ay nin iyo nin noqoto gaaladuna aad bay uga cabsadaan wax loo yaqaano silaaxa abyadka ama toorida iyo waxa lamid ah maanta waad arkaysaa meeshan Falastiin ay Yuhuudda haysato waxa ka dhacaya aad bay u cabsadaan markuu qof Falastiiniya uu toori adeegsado ama mindi adeegsado waxa arkaysaa intaasoo Israa'iil ama dilay ama uu dooxay oo dhaawacay aad bay uga cabsadaan sidoo kale ragga kala duulka ah ee Yurub iyo kala ka howlgala aad bay uga baqaan oo ragga goobta ay kula kulmayaan dagaalka waxay uga cabsi badan yihiin raggan qarsoon ee tooriyooda hoosta ku wata ee si kadisa u dilaya marka waxa iyadana isdultaag u baahan ragga maanta oranaya waxaan ciidamada dagaalamaya mutakaafi maaha isuma dhigmaan nimanku way naga hog badan yihiin way naga teknolojiya sareeyaan hadallada in badan baan maqalaa oo iyagu waxay u arkaanba jihaadka macnaheedu inuu yahay in la dhimanayo oo qofkii jihaad galaaba uu soconayo ajalshiisii oo ka soo hormaraya bay moodaa inay saas u fahamsan baad moodaa qof kasta ajalshiisa waqtigii la qoray ayuu dhimanayaa sabab uu baan kulli haduusan seeftu dilina si kale isaga dhimanaya watay ahayd uma lam yamut bi sayfi mata bi ghayrihi ta'addadat al asbab wal maut wahid aad buna ilaahi quraanka nimanka nooca u fikra ku ceebeeyay yaqulu ta'ala alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ورجي يجي مارتي هذي ولا لا يا جماعة نلا جوج الهين وإن مقل الهين وتقال كأن هذه الهين لما الدلين كاس إلهي حوليه بل يديكم نفتي إن موت كعلي هذا الخون شيء جستان كون ما أنت أرنا يا أو أرضه يا حلقات كأقول لك يا وح ما أنت صعد جهاد ما يكون مهما تقال ويل باكو أنت ويل كمردشوا أنا حاليا تقال ويل باكو دشة ويل باكو دشة بدن ويل قرامها ويل بدن باكو دشة oo rag baa ku soo baxay abtaal oo gaarada iska celiya oo isaga nolola sidii Ilaahay baa noo sheegay idaa da'aakum lima yuhyikum anagu xaleenahay jihadku waa xayaat iyo noloshu weey waaba noloshu jihadka ay ku jirtaa sidii Ilaahay baa noo sheegay qoladan in la maaragtay hadii dagaal gal wala dhimanaya wiilba dhimanaya wiilma dhalanayana de maalin kasta iyaga nacashka lagu sii wada way dhintaan mid soo kor disho iyo dikardilo iyo mid qaadiya darooga disho iyo mid si kale xun u dhinto mood fajaa u yimaadaba way dhintaan moodkana kama badbaadaan marka in Abdullah Xasan kuwaas ayuu ka aad uga caqiida fiicnaa iyo ragiisu waayo waxay aaminsanaayeen inay fulanimadu ceeb tahay waxay kale aaminsanaayeen qofka maaragtay fulanimadu inayan ka badbaadinayn qadarka wax Ilaahay u qoray fulanimadu diin ma hayo shay daliil galahe adoo kalintaadi dayacay haw kitaab dayne abbaaraha saacaddu markay ahayd 11 subaxnimo ayaa ciidankii koobaad ee daraawiishtu dagaalkii ciidankii labaad u baneeyay kaasina isagoo carcartiisii qaba ayuu si habsami ah u dagaal galay
daraawiish badan oo dagaalkaasi ka qayb gashay waxay wariyeen in ingiriisku ciidankiisii silsilado bir ah lugaha ka gelshay oo labalabo isugu xiray si aanay u kala baqin amaba aanay u cararin. taasina daraawiish wax weyn bay u tartay, waxayna awood u siisay inay labalabo u gowracaan oo ruuxna aanu goobtaasi ka fakan. abbaaraha kowdii duhurnimo markay ahayd ayaa wax dhaqdhaqaaq ah ama wax rasaas ah dhinaca kasta laga waayey. maxaa wacay? gacan baa dagaalkii tegay. daraawiishi iyaga oo gabayo iyo welgooyin digasho ah ku maansoonaya ayay dabkii, rasaastii, girligaankii iyo wixii maal ahaa ee gumaystuhu watay gurteen. allow girligaanku waa jahoraye, allow yaa jiita oo hela, allow jirabada adduunka iyo allow naar nooga jeerdhaaf. waxaa la wariyey in ciidankii ingiriiska ee dagaalka galay wax nabad qabaahi goobta ay ka tageen 6 nin oo keliya, laakiin sida macruufka ah ma oggola ingiriisku inuu qirto in ciidankiisii la maquuniyey, balse waxa uu ku marmarsiyooday inay rasaastu ka dhammaatay. sidaasi waxaa qoray Brevoisi Petersby. si fiican markay u dagaalameen ayaa ciidamadii ingiriiska laga adkaaday, iyadoo ay ugu wacneed rasaastii oo ka dhammaatay. waxaa ka fakaday 41 nin oo keliya oo ciidankii Cornel Cobb ku soo biiray, kuwaasoo 6 nin ma ahee inta kale ay dhaawac ahaayeen. khasaarahana wuxuu ahaa 8 sargaal oo ingiriis ah iyo 200 oo nin in ka badan. qoraaga ingiriiska ah ee Douglas ayaa isna waxa uu dhacdadii cagaar weyne ka qoray sheekadan kooban. sidaanu kula hore u nidhi, saraakiisha ingiriiska ahayd oo dhan waa la laayay. Plunkett iyo Oliver waxaa kaloo la dilay Captain John Stuart, Argyle iyo Sutherland Highlanders, Captain Morris guutada bariga Kent, Captain Mackinnon ee guutada Notts iyo Derby, Baitnet Qaymer guutada 2. tirakoobkii khasaarahana soo gaaray waxaa ka mid ahaa 9 sarkaal oo ingiriis ah iyo 187 askari oo la dilay iyo 29 dhaawac ah. goobtaasi 6 nin oo keliya oo aan la dhaawacin baa nooga fakatay. inkastoo muraadkooda weyni uu daraawiishi ahaa aad hub ka furataan gumaystaha, haddana waxay gacanta ku dhigtay dhammaan wixii uu ciidankii gumaystuhu watay, wax kastaba ha ahaadeene sidaannu goordhoweyd soo sheegnay. daraawiishtuna goobtaas lib iyo guul bay kala laabatay. ingiriisna jab, caloolxumo iyo baroor buu kala laabtay. goobtii lagu dagaalamay waxay noqotay meel ay goglan yihiin meydadka ciidankii gumaystaha ingiriiska. inkastoo ingiriisku uu ku dooday inay 6 nin u soo badbaaday, haddana qoraaga kitaabka thaa'ir min as-Soomaal Cabdisabuur Marsuuq waxa uu sheegay in 2,000 ee askari aanu midna ka badbaadin. oo keliya wuxuu sheegay in fagaaraha looga tegay dhaawaca nin dabadhilif ah oo la oran jiray Aadan Cali oo tarjumaan u ahaa gumaystaha, kaasoo si loogu maleeyo inuu dhintay isku dhex daray meydadka ingiriiska. hubkii ay daraawiish ka furatay ingiriiska waxaa ka mid ahaa 3 madfac oo waaweyn, 4 rashaash oo u dhigma dhashiikaha ama dabajeexa, 2,200 oo qori oo boobayaal caadi ah. allow girligaanku waa jahoraye, allow yaa jiita oo hela, allow jirabada adduunka iyo allow naar nooga jeerdhaaf, allow jidsidaadna dhaafsiiyo, allow jaarkaaga naga yeel. dhanka muslimiinta waxaa halkan looga dilay 360 ruux, halka ay ka dhaawacmeen 140 kale. goobtaasi waxay ingiriiska u noqotay 10 aad u qaraar oo uusan horay u filayn. daraawiishna baaldheer oo lib iyo geeraar leh bay ku gashatay. gabayo badan iyo sheekooyin kala duwan ayaa goobtaasi laga tirshay ama laga mariyey. giddigoodna waxay muujinayaan guushay daraawiishi halkaasi kala laabatay. haddaba sheekh Abu Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegayaa in dagaalkii cagaar weyne uu ka mid noqday dhacdooyinka dahabiga ah ee ay dadka muslimiintihi ku faanaan, waxaana uu dhacdadan ku asteeyey mid bannaanka soo dhigtay inaanu gumaystuhu ka libaysan karin mu'miniinta haba laga badnaado. marka macrakada culiyskeedii waxaa laga dareemayaa ikhwaani fillah waxa weeyaan meesha wixii ka dhacay iyo khasaarihii cadowga soo gaaray. dadka mujaahidiinta waxa soo gaaray khasaare lama yiraahdo, maxaa yeelay dadku ilaahay bay u tadarruceen subxaanahu wa tacaala. ilaahay bay gacnaa kor ugu taageen,
ilaahay waxay dhahay naga tabartanadu intaanay la agta intaanaan wadanaa saanan ku dagaalgalaynaa ilaahu naga aqbal dagaalka qabuulkii marka ilahay dagaalka uu ka aqbalayo ilahi subxaanahu watacaala uu shahaadada ka doortay iyo jarxada khasaare ma aha liibaan waaye maxaa yeelay hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusniyeynti waay ixda alxusniyeyn labada wanaagsan midood waay ilahayna qur-aanka isku le wayattakhida minkum shuhadaa dadku way keeneen goobtii bay keeneen dadkan ilaahu adaa iska leh dagaalka darta aan u galnay ilahay marka wuxuu ka doortay in khasaare lamir laakiin cadowga wixii gaaray waa khasaare weeyaan maxaa yeelay isagu ilahayna kuma tiirsaneen shahaado iyo rido ilaahayna ma raadinayne ilahay diintiisa inuu la diro uu raadinaya marka labada qolana sidaasaa masiirkooda iyo ma'aalkooda u kala duwan yahay waa saa marka dagaalka marka culayskiisa waxaa laga garanaya ikhwaani fillah waxa weeyaan meesha wixii ka dhacay meesha wixii laga helay ee rasaas ahayd ee sahay ciidan ahayd meeshaa lagula wareegay ilaahay subxaanahu watacaala nicmadaas oo haniimadaasna ilaahay waa siiyey guushiina meesha iyagaa ku haray marka runtii macrakadaas waxay ku qiimaysan tahay macaarigtii faasilka ahayd ee dhex martay muslimiinta iyo gaalada oo baal dahaba ku qoran oo taariikh la fiirsada ah oo marka gaalo maanta la khitaabayo qalbigoodii dhibaato ku tahay sidii macaarigtii faasilka ahayd ee muslimiinta fii casri saxaaba fii casri rasuulillahi sal alla alayh wasalam fii casri taabiciin fii casri salaf saalix soo martay oo kale bay la mid tahay tan marka runtii qiimaynta dhabtii marka waxaa weyaan ikhwaani fillaahi cadowgu mahmaa awood kasta uu la yimaado mahmaa qalab kasta uu keensado uu jabahaya meeshaas waxaa weeyaan duruusta laga faa'iidaysanaya qofka ilaahay diintiisa u jihaadahay ee ikhlaaska iyo sidqiga ku dagaalamayana inuu goobtaas guusheeda qaadanayo wax laga fahmi karo weyaan qiimaynta marka waxa weeyaan inuu dagaalkaasi runtii waxa weeyaan cadowgana uu taariikh ku reebay darsi lama ilaabaana uu siiyey inaga muslimiinta iyo mujaahidiinta maanta noolna taariikh inoo reebay oo ay tahay goobihii taariikhda inoo galay een maanta ku faani karno een dhihi karno xilligaa taariikhdu marka intaa ahayd dagaalkii gaalkii soo duulay iyo wuxuu wata lala galay ilaahay waatuu guush inaga siiyey marka waa meel miraayad la fiirsanhayo إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا رياح الانتصار أقبلي ولأقطاب النفاق سلسلي sheekooyinka cagar weyne ee la yaabka leh waxaa ugu daran midda tan oo uu wariyey maxamed xaaji xuseen oo ku magac dheer sheeka xariir dagaalkii cagar weyne markuu dhacay waxaan ahaa kura yar waxaanuna degnayn meel la yidhaahdo faaf oo degmada qabri dahri ah xerada geelayaga rarteeda dambe meel u dhow waxaa ahaa geed qurac ah geedka waxaa uga xama uu kuni u tiil gorgor sidii loo joogay ayaa gorgorkii la waayey aabbahay ayaa wuxuu yidhi war gorgorkii geedkan fadhi jiray xaggee buu u kacay ayaantan lama arkine wuxuu maqnaadaba dhowr casho kadib iyadoo guriga raartiisa la fadhiyo ayaa gorgorkii soo muuqday aabbahay iyo rag kale ayaa kolkaas isweydiiyey meeshuu ku maqnaa intii la hadalhayey ayuu geedkii ogaxda u tiil ku degay kolkaasee laantii la jabtay dabadeedna dhulkuu habsaday oo kici waayey markaasay raggii yidhaahdeen war culays ku soo kordhay awdiis baa laantuu la jabtay gorgorka dooxa oo bal eega waxa ku soo kordhay nin la odhan jiray maxamuud gurey ayaa gorgorkii dooxay waxaana calooshiisii laga soo saaray hilbo dad oo badan inta dhabannada la qabsaday ayaa laiswada eegay oo waxaa la yidhi war maanta geyiga soomaaliyeed wax weyn baa ka dhacay oo aanan horay loo arkin 2 maalmood haddii la joogay ayaa warkii noo yimid oo na loo sheegay in daraawiish iyo ciidamadii ingiriiska ay isku birjabeen cagaar weynena dagaal ba'ani ka dhacay sheekadaasi waxay ina tusaysaa guuldarradii goobtaasi ka dhacday iyo wixii rag haadka loo goglay bal waxaa la yaab leh haddii uu gorgor keliyii sidaasi meydkii uga dhargay maxaad mooddaa dugaaggii iyo haadkii kale oo raqdii tegay saamigiisii dhurwaagii ka digaanu diray gacan falameede isagay gargaro dugaagiga gooniyahe haddaan garan gunan siin lahaa goriyo ayaare ingiriis kolkuu dagaal daraaweysheed u baxayo waxa uu tumi jiray tanag iyo waxyaabaha dadka inay wax jiraan lagu ogeysiiyo waxaana dadka lagu odhan jiray sida soo socota soo baxa daraawiish baa loo duulayaaye caddaan iyo hindi yamyam iyo suudaan dagaalyahan ah baa diyaar ahee soo baxa daraawiish aad geel ka heshaane soo baxa
daraawiish tabar ma lehee fardahoodu ruqo weeye oo weerar iyo raacdo toona ma geli karaane rasaasna ma haystaane soo baxa nin walba xero muggeed buu heli doonaaye tanagyadii ay wakhtigaasi garaaci jireen waxaa u beddelay niman afka soomaaliga ku hadla oo idaacado iyo telefishinno lasoo fariisiyey kuwaasoo mar walbaahi ku hadaaqa islamarkaana buunbuuniya hadallada gumaystaha iyo maamullada ku daaban haddaba muxuu dadka qaarkii hadalladaasi run mooday maxayse qabaa'ilka qaarkii dhab u qaateen in gumaystuhu u dhisayo maamul iyo horumar kadibna ay dhib iyo ceeb la kulmeen sida ay maanta u dagmi karayaan dadka indhowgaradka ah ayaa waagaasi nin magaciisa la odhan jiray qaaje maxamed ciise laguna naanaysi jiray qaaje balas ayaa waxaa hoday hadalladaas oo intuu dhab u qaatay ku darsamay ciidankii ingiriiska ah ee goobtii cagaar weyne u dumayey ninkaasi wuxuu ka mid ahaa raggii yaraa ee caradii iyo warmihii daraawiisheed ka nabad galay markuu reerkiisii nabad tegay ayuu geeraar mariyey isagoo allah casa wajalla u mahadnaqaya mar hadduu naftiisii badbaadiyey isagoo isla geeraarkan ingiriiska ku haaramaya ragguu damaca baas geliyey oo beenta ku hoday ayaa waxa uu yidhi raxanraadkiyo hawsha kama raali ahayne rag baas bay damciyey rabbina weyla iraaday geel baana raadi lahaa waxba yaan rimaydiisiyo ratigiisa rareeriyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubaddayda reerihii nabadgeeyey rabbiyow mahadda erayadan oo kale waxaa xilligan la joogo ku tiraaba qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka ka soo goosta kolka ay la hadlayaan warbaahinta dagaalkaasi waxa uu ku dhammaaday guul dhinaca daraawiishta guul darro gacno maran dhanka ingiriiska dhanka kale dagaaladii soo dhex maray daraawiish iyo gumaystayaasha waxaa laga dheehanayaa in dhanka sirdoonka ay ku horreeyeen mujaahidiinta weliba waxaa la yidhaahdaa sayidku waxa uu ahaa nin dhan kastaahi ku wanaagsan oo kala garanaya qofba halka uu ku habboon yahay sirdoonkana waxa uu u xuli jiray rag ku wanaagsan cabqariyadiisii dhanka sirdoonka waxaa tusaale loogu soo qaadan karaya gabay uu kula dardaarmay mid ka mid ah ciidamadiisii sirdoonka ee meelaha fog loo diri jiray waxaana ka mid ahaa meeshay ku haasaawayeen horay u sii joogso haylihii xumaa iyo bustihii habacsanaa qaado hana hagoogan waa tuhun dharkaad habisku siisaaye haddaba ow jaamaca ayaa waxa uu sii faahfaahinayaa sirdoonkii daraawiishta wardoonka wuxuu ku ahaa ismaahiil weliba ku fog habeenkii markii laysu yimaado oo gabalku dhaco farxad baa laysugu iman jiray oo markaasaa lays waraysan jiray waryaa war haya ebel baa halkaa ka yimi ebel baa halkaa ka yimi saasuu soo sheegay saasuu sheegay ninkuu dirayana hadde waa kiiba la ballami jirayoo fanka waxay ku ahayn dhinaca wardoonka ya allah ya allah ya wax la qiyaasi karo maahayn ciidamadu ma bixi jirin jeeray war helaan waa in nin tagaayo rag tagaayo soo warramaayo meesha la degan yahay iyo gaalo siday tahay iyo qolada lagu duulayo iyo waxaasoo meelaha la marayo intaasoo dhan waa in la og yahay hadhow marka la baxayana waa in nimankii gaarka warkaa keena waa inay ragga garwade u yihiin سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يضاهى وعن من يرتجي فيه الثوابا بطولات تسطر كيف كانوا أسودا يعتلوا الصرح المهابا dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta sagaalaad ee barnaamijka halgankii daraawiishta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا على وجه الثرى أرسوا أساسا يعانق من معاليه السحابا
ليبقى للمدى ومضات ماجد من التاريخ قد بلغ النصابا، ليبقى للمدى ومضات ماجد من التاريخ قد بلغ النصابا.